أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا راجعون. إنا لله وإنا راجعون. ما أنت waxaan ka xumahay magaalada Soomaaliland wadanka Soomaaliland oo geeriyeysan oo 23 dadkii geerida iyo dhiiga ku faanayay maanta lagu soo dhaweynayo oo dilaalintii magaalada joogay ku soo dhaweynayaan oo reerihii buuraha fuulayay ee Soomaaliland doonaya bartanka kula jaraan soo dhaweynay leeyihiin banaanka soo marayso ninka 70 jirka ee banaanka qolofta kaga dhacdayo adeero uma marayso mana soo marayso banaan ba sheegaysa leer markayso laba sano oo haray madaxweynaha ma labadaas sanadood ayay magaalada sii joogi ma labadaas sano madaxtooyada ku dhex noolaani been baad ku sheegteen dadka maanta shacabka tumiyo odayaasha shacabka tumayna been baad ku sheegteen in kan mudan oo dhul baanta oo ka wanaagsan baa dhulka joogta oo la soo dhaweyn lahaa ma odayaasha la soo keenay maxaa go'garada habla loo iskilaya shalay naagtii fidmada bilowday ee Soomaaliland fidmada ka dhex bilowday maanta Soomaaliland shacab loo tumayo dilaalin iyo habla yarna naagana lacag ku qaadan maayaan la buunbuunin maayo ceebaha la soo xireen maayo dawladana dawlad fashila oo haa iyo maya oo dawladnimo garanayn oo ceebaysan oo waxay ku baxsata laba sano ku khashifanteen dawladda maanta laba sano kaliya ku khashifanteen waa dawladda haa iyo maya laba sano ku khashifanteen mid kale maanta hadalkay Muuse Biixi ku dhaliilaysay naaga ag fadhiya ee dhaliisha shacabka tumayo bilaadhiig baa tirma baranbarbaatiin maanta ciro waa kii boorama googooyay ee 43 qof ka dilay qof reer boorama lagu mag dhalii karayade ma garatay madaxweyne ku xigeenku halka kama hadli karayo markaas adeerkiina naag dhaliilaysa shalayna buurta u fuushanayd maanta shacabka u tumaysan dadka bilaadhiga ee habarawal ee xanuunsanaya ee rag iyo dumarba shacabka tumayo kii shay deg adeer deg lahaana banaanka loo saaray tii fanaadina banaanka loo saaray maanta maxaad noqonaysaan laba sano oo hore labada sano halkii joogaysaa ma joogi karto mana fadhiisan karayso dadka waarka xidhan Soomaaliland ee lacag bay ku faantay tiri dadkii ummadda Soomaaliland indhaha qoriga kaga saarayay ee rag wuxuu goosanayay ayaa maanta Hargeysa iyagoo jooga dhaliila bixinaya naagta maanta la soo dhaweynayay ee naagaha dilaaliinta ee magaalada jooga soo dhaweynayaan waxaan leeyahay ka xumahay naagaha ka sii darankii adeerkood lagu hor caayayo ee adeerkood lagu hor dhaliilay shalayna adeerkood banaanka loo maray ee madaxweynaha maanta jooga waa reerka buurta ay shay noo shaqeynayaan maanta noo shaqeynayaan ee shacabka saa loogu tumayo ka xumahay anaga mid baa naga jirtay habtaan reerkaana reegida naga raali ahaada mid baa naga jirtay tiktokarade abti naga raali ahaada habar walay dawlad jirtaa maanta ma jirto dadkii ciidanka shalay baabiinay ma teera maanta Hargeysa dhex fadhiya ma naagtii ragga shalay toole dhulbaantii qoorta dhaareeranta la leekaana wati googoysay ee xabaala ku soo gurtay reesh xisaaqna wati xabaala ku soo gurtay ma taasa maanta ilaahay baa inagu dhaarshay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan naag la isku halayn karin oo naagu imiga dilaalin ina quujo kaga taamila qaado qof kasta oo Soomaaliyo ina quujo kaga taamila qaado waxaan u sheegayaa laba sano u haray ninka ciida galalaha Hargeysa isaw dhex socon doontaana ma dhex socon naagtaas rag baa indhooga ku maqan yahay rag bay banaanka inta ula baxday yaa ay soo gowracday shalay waa tiraahid nooga bixi maanta maxay ka soo doontay Soomaaliland waa la wada leeyahay lama wada lahaa meesheeda ay lahayd waa nooga bax ku lahayd dadka yadna maanta iyadoo martiyo dadka dabada gelinaysa waxay soo doonaysaa meesheeda joogto adduunyadii bay soo qaban weyday Hargeysa mooyaan meel kale iftiimisa ma jirto xamar bay soo qaban weyday Kenya soo qaban weyday ammaankeedii meel ku sugtay weyday waxaan leeyahay